Assalaamu calaykum. Bismillaahi raxmaani raxiim. Dhammaan walaalaha ku xiran kanaalka ama kuwa imaan doona insha Allah waxaan idin ogeysiineynaa ama waa idinkugu bashaareynayna insha Allah cashiradeena inaan ku soo kordhinay cashiro ku saabsan shuruucda ama qawaaniinta baabuurta ama gawaarida waaweyn loo yaqaano trucka amaba qof walbo rabo qof walbo xiiseynaya inuu noqdo truck driver ama waro inuu noqdo faqtuq chauffeur waxaa ku soo kordhinay cashiradeena online-ka ah shuruucda ku saabsan truck driver ama faqtuq chauffeur insha Allah waxaan idin leenahay ku soo dhawaada hadduu Ilaahay idmo isqorista way socotaa hadduu Ilaahay idmo insha Allah tacaala haddaa waxaan isku dayo inaan sharaxo imtixaankooda meeqa imtixaan meeqa su'aal muuqaalkeena aan ku sharaxo insha Allah normaalka ama sida caadada ah waxaan cashiradeena kusoo qaadan jirnay right device b laysanka bida baabuurta yaryar ama kuwa raaxada loo yaqaan waxaan kusoo kordhinay right device c ama laysanka sida oo loogu talagalay baabuurta trucka ah ama kuwa waaweyn in lagu wado haddii aad xiiseynaysid ama aad rabto inaad noqoto faqtuq chauffeur oo ah macnaheeda truck driver darawal baabuurta waaweyn ah waxaa lagaa rabaa wejiga koowaad inaad barato shuruucda iyo qawaaniinta iyo khibradda iyo xirfadda wejiga labaadna si practic ahaan inaad u wado gaarigii aadna u gashay imtixaan kuna soo guulaystay insha Allah aniga waxaan ku bari doonaa wejiga koowaad oo ku saabsan khibradda xirfadda shuruucda calaamadihii wejiga labaadna waxaa ugu tagaysaa hadduu Ilaahay idmo insha Allah iskuulka laga barto baabuurta waxay u kala baxaan 3 imtixaan wejiga koowaad oo shuruucda ku saabsan wuxuu u kala baxaa 3 imtixaan imtixaanka koowaad waxaa loo yaqaanaa vak bekwaamheid vak bekwaamheid ama waa u dhiganta kowda 95 haddii lagu dhaho kowda 95 iyo haddii lagu dhaho vak bekwaamheid c waa isla meeshii vak haddaan faysiro macnaheeda waxaa laga wadaa skillska khibradda shaqada truck driverka ah u leedahay inaad barato ayaa lagaa rabaa waxaa loo yaqaanaa vak bekwaamheid c waana 50 su'aalood waxaa la socoto qaybtaas qaybteeda labaad wegcode codeka wadada ama theory c oo idan isku macnaha wegcode iyo theory c waa isku mid buuggaasi waxaad ku baranaysaa asigane calaamadaha wadada yaa kaa leh leerarkii wadadii rigooyinka dhulka ama laami ku samaysan ayaa lagaa rabaa inaad barato 50 ama 50 su'aalood waa idan waxaa lagaa rabaa marka waa 50 iyo 50 waa 100 su'aalood oo lagaa rabo inaa hal fadhi aad uga kacdo 50kii su'aaloodna waxaa lagu ogol yahay boqolkiiba 80 inaad saxdo ayaa lagaa rabaa wayna ka dhigan tahay in lagu ogol yahay 10 qalad kan kale sidoo kale wegcodeka inaa boqolkiiba 80 aad saxdo 10 aad qalado 10 su'aal aad qalado boqolkiiba 80 aad saxdo ay ka dhigan tahay 40 su'aalood inaad saxdo mathalan 40 su'aal maadan sixin ee waxaa saxday 39 labada qaybood qaybtii yacni oo qaladkaada uu ku bato ayaa ku laaban dib aad ugu laabanaya mathalan vak bekwaamheydka waxaad keentay 38 su'aal sax ah ama 39 laakiin wegcodeka waxaa keentay 41 mise 40 way ka dhigan tahay inaad ku guulaysatay midka wuu ka haraya insha Allah dib dambe ma ugu laabanaysid insha Allah tacaala laakiin vak bekwaamka marka la soo celinaya imtixaanka labaad case studyga asna waxaa loo yaqaanaa in kiisas aa xalin karto
مثلا baabuurkii aa wadaa traagii shila ku qabsaday ama badeecadii aa wadaa kaa daadatay ama tuuga ku dhacday waxyaaba noocaas ah ee lagaa rabaa inaad xalin karto iyadana waa 40 su-aalood 40 su-aalood waxaa lagu ogol yahay boqolkiiba 80 inaad keento ama inaad saxdo oo macnaheeda ah 32 su-aalood inaad saxdo 8 su-aalna lagu ogolaya inaad qalado insha allah imtixaanka saddexaad Mondlin say waxaa lagaa rabaa yani conversation ahaan ama af ahaan weji ka weji ah in ama face to face ah inaa mataqaana imtixaan u gasho oo 10 su-aalood ah 10 kiisna aa xaliso ama 10 su-aal ah sax ayna aad ka jawaabto yani 10 su-aalood inaad ka jawaabto ugu yaraan inaad saxdo 8 su-aal laba qalad ayaa lagu ogol yahay sidoo kale asigana boqolkiiba 80 ayaa lagu ogol yahay inaad keento wejiga koowaad waa wejiga aan insha allah kaa caawin doono amaba faceka koowaad waa faceka aan isku dido inaan kaa caawiyo ama aan ku baro haddii aad kusoo guulaysto dhammaan waxaa lagu ogol yahay muddo 3 sano ah inaa mataqaana aad kusoo qaado wejiga labaad oo ah yani practicekii haddii aan gudubno wejiga labaad waxaa lagaa rabaa marka practike less inaa cashir practiga soo qaadato oo iskuulka ka qaadato iskuulka baabuurta kadibna practike exam imtixaan oo practicdan aa gasho aa kusoo guulaysato haddii wejiga koowaad aa kusoo guulaysato muddo 3 sane ayaa jaanis haysataa inaad kusoo guulaysato practike examka imtixaanka practicalka inaad iskuulka tagto soo barato gaarigii kadibna aad soo qaado insha allah tacaala taana waxaa ugu tegaysaa iskuulka aniga qaybteeda waa shuruucda iyo qawaaniinta inaan ku baro hadduu ilaahay idmo su-aasha waxay taagan tahay marka maxaan u baranaynaa truck driver belgiumka iyo netherland iyo yurub oo dhanba waqti xaadirkan waxaa ka jira baahi badan shaqo ama shaqaale ayaa loo leeyahay inay noqdaan truck driver so waxaa marka ay ku dadaalayaan dowladaha inay shaqaalo badan ama dad badan ay baraan sida loo wado baabuurta waaweyn si loo buuxiyo baahida jirta waxay ku magacaabaan canal punt waxaa loo yaqaanaa canal punt wax adag tahay in la xaliyo matalan kasoo qabo dhibaatada waxay ka taagan tahay in la helo lacag ereygan canal puntiga waxaa laga wadaa waa dhibaato ama caqabadaha jirta so canal punta beroepen shaqooyinka ay adag tahay in la xaliyo ama in la buuxiyo sein beroepe waarvoor de invulling waa shaqooyin oo in la buuxiyo boosaska bannaan ay adag tahay markii loo eego shaqooyinka kale insha allah tacaala darum ama that's why ayaa loo baranayaa yani haddii aad barato truck driverka waqti xaadirkan shaqo la-aan ma ahaanaysid shaqo helaysaa hadduu ilaahay idmo insha allah tacaala waxayna ku magacaabeen canal punt beroepen shaqooyinka ay adag tahay hadeertan in shaqaale loo helo haddii aad rabto inaad diyaariso keliga ama in lagaa caawiyaba laba buug oo noocaan ah ayaad heli doontaa labada buugoodna waxay wataan waxa la dhaho code oo ah in online ahaan aad u diyaariso insha allah tacaala buugga oo ku saabsan theoryga ama wek codeka waa 228 pages rabi by say of day waxaadna ku baranaysaa theoryga ku saabsan sida ama dayda like hada anaga waxaan baranaynaa sida oo ah traga hadduu ilaahay idmo buugga labaad waa 133 page oo ku saabsan rabi by say leysonka sida ah fact become height skillska ama khibradda oo lagaa rabo inaad u lahaato shaqadaas insha allah tacaala waxaan idin leeyahay insha allah isqorista way socotaa kusoo dhawaada haddii aad xiiseynaysid inaad noqoto truck driver ama vrachtwagen chauffeur
waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu